wasaaradda caafimaadka Soomaaliya iyo dhakhaatiirta ku howlan ka hortagga xanuunka coronavirus. madaxweynaha oo markii kulanku soo dhamaaday warbaahinta la hadlay ayaa waxa halkaas uu ka jeediyay hadal dheer waxaana qayb kamid ah hadalkiisa uu madaxweynuhu ugu jawaabay Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo dhawaan madaxweynaha fariin toos ah warbaahinta uu mariyay. dhakhaatiirta maanta dalka idinka hogaaminaya idinkaan dhageysanaa laakiin hana qasina oo kulba dhahan oo shaahinin dhakhtarada laftooda muxuu dhigay duul culimo qasana laba wiil ka dhakhtaradena waaweyn ugu aragsan rag kamid qayb kamid ah oo aad loo qadariyo isaguna sheegay inuu yahay dhakhtarka ugu cilmi badan maanta Soomaaliland anaguna aan ku ogolahay oo ku doos nin kasta cilmi badan maanta fariin bay noo soo diray uu leeyahay kala fogaada caafimaadka ilaaliya uu inagu adkeey waynu ka qaadan qaadka joojiya dadka hala ilaaliyo madaxweyne marxaba maanta wixii arintaa wax ka hadlaya ee waxa jiray waa ogol bal amarka ilaahay haddana isla dhakhtarkii ayaa maalintii qaadka la joojiyo dadka la kala heliyo shaqaalihiisa la boqora u qabtay xaflado meel soo keenay nin baa yiri warno iyo dul cilmi qasaan xaq walba loo jeedinay haddii dhakhtarada dadkina isu keenayaan waa aragsana tan daayira ilayhin iyaguna de meel quraha noo mariya dhakhtaradu iyagu hana tusaala sida loo kala tago sida loo kala durkaayo waxaad noo sheegaysaan ha ka muuqdo dhakhaatiirta waliba kuwa dhageysanaya waa weyn taasina way iga xusan dhakhaatiirta ahoo waa la soo canaananayaa dhakhtaradu de waa idinkan maqlaayeen ma xamanayeen dhan uun de noo wajahay Cabdiraxiin Muul Ismaaciil shabakada wararka News magaalada Hargeysa.